ninkii marka sharciga ku soo gooyay yaa wuxuu ku leeyahay haddaa ii imaan weysid ii codayn weysid sharcigan aan kaa ceshana fiiri laangaabka dhib ha mara wuxuu u maraayaa la ogyahay laakiin laandheera dhib ha mara ka war waa dad extortionist ah oo fursad u arkay qofka miskiinka af Soomaaliga aqoonin af Ingiriiska aqoonin aan fahansaneen raadaaga ka jiro caasimadda waxa doonta ka samaysan kartaa laakiin dadka dhibka sameynaya waa dad shakhsiyaad ah laakiin haddaysan isku haleynaynin xildhibaanada qabiiladooda baarlamaanka ku jiro generaalada ciidanka ku jiro booliiska CID-da anti-terrorism booliiska kuwa ku jira haddaysan isku haleynaynin oo Soomaalida ay wada madax siman tahay dhibkan ma jireen waxaan kama hadli lahaa midda ugu dambayso oo xaafadda Islii in dhulka hoose hadday noqoto qaybo ka mid ah dhulka hoose loo daadejiyo fikradaasi ageed ka keentay macquul kula tahay Islii ma ka soo toobi kartaa intaan wadamada hormaray la aadina Afrika wadamada hirgelay ma jiraan Afrika horta waxa waaye Afrika hurdooy waa Afrika waa hurda Afrika wali lagama sameeyay arrintan laakiin se wadamada kale Mareykanka iyo European-ka waa laga sameeyay transportka underground mara oo trainmada dhulka hoostiisa ay maraan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالو حد كسر دبعتان ورئيسي عن ليلة نيو عبد العزيز حسن كوفي جدود كم قعدير وحنو كجهد الدونها أرمى فربضن وحفظ إسلي نيروبي وكسمية يقولي بهم سياسات لابد يكون لبي لبعتان كا دورشة درك كده دونته وجهرين iyo galada inaan barnaamijka ku soo dhabeeyo martida dimaad Abdi Aziz inoo soo dhawo waa maasantahay walaalkay adiga iyo bahda iftin aad baan inkugu mahadcelinayaa magacayga soo sheegtay Abdi Aziz Xasan Maxamuud ku magac dheer Koofi Gaduud waxaan murashax ka ahaa xaafadda degmada Kamkunji ay ka tirsantahay xaafadda Islii doorashada 2017 hadda 2022 insha Allah diyaar garowban ku jira inaan isla xilkaas u tartamo استوديوها وكله هاي iyo programka Abdi Aziz aad baan kaaga mahadnaqayaa waqtigaaga maanta inaad qayb naga siiso ugu horreyn hadii aan ka hormarno Abdi Aziz Xasan Maxamuud muxuu yahay muxuuna qabtaa Abdi Aziz Xasan waa nin dhalinyaro ah oo ku hamiyay inuu siyaasadda dalka ku biiro markii uu arkay inay fursad uga bannaan tahay waxaan ognahay ninka hadda xildhibaanka xaafadda nooga ah inuu muddo dheer ku fadhiyay kursiga da'diisana ay sii kordhayso isbeddelka hadda socdo iyo xadaaradda hadda soo kordhayso teknolojiga hadda casriga oo soo kordhayo iyo dhalinyarta waxyaalaha ka dhex guuxayo inuusan aad u fahansaneen uunan la jaan qaadi karin uusan ka dhabayn karin rabitaanka shacabka oo dhalinyaro u badan anigana maadaama aan dhalinyaro ahay waxaan u arkay inay muhiim tahay inaan hogaaminta xaafadda aan ka qayb qaato isa soo bandhigo dadkayga isbaro taasaana sabab weyn u ah inaan magaca Koofi Gaduud la baxo si shacabka ay isi bartaan hadhowna markii ay codeynayaan aysan ku wareerin candidate-kooda ama murashaxooda qofku yahay ay horey ka gartaan yiraahdaan Koofi Gaduud waa kana sidoo kale ganacsadaan ahay waan ganacsadaa waxaan ka shaqeeyaa shaqaaleynta shirkad waxaan leeyahay staffing agency waxaan tababaraa shaqaalaha guryaha ka shaqeeya sida booyaasooyinka waardiyaasha tababaraan u sameynaa waana nagala soo dalbadaa macaamiishanadana adeeg fiican u sameynaa marka ganacsiga dhankaasna waan kaga jiraa waxaan kaloon ka soo shaqeeyay aniga arrimaha bulshada hay'ad waxaan u shaqeyn jiray la yiraahdo Global Enrichment Foundation oo Canadian based ah 2013 ilaa 2014 waxaan wax bari jirnay haween qaxooti ah oo Soomaali iyo Oromo iskugu jiro ayaga iyo caruurtoodana iskoolada caadiga aan geyn jirnay ayagana barnaamij rajul la yiraahdo yaa waxaan ku bari jirnay basic education-ka sida English-ka xisaabta Soomaaliga iyo dhartoliinka qurxinta haweenka saloon iyo waxyaalahaas oo kale hadhow markii ay waxbarashadooda dhameystaan waxaan bari jirnay table banking lacagaan siin jirnay ay noloshooda ku maareeyaan xirfadii ay barteen
gabadhi baratay tailoring ama dhartoolinka waxaan siin jirnay harqaamo iyo waxa ay jeceshahay inay tasho materialkeeda iyo lacag capital injection ilaa 100,000 oo ay suuqa ku gasho ay wax ku bilowday haddana gabdho fara badan oo waagaas aniga meesha aan macalinka ka qalin jabiyay oo xaafadda ganacsi fiican ka haystaa jiro waan ku faraxsanahay waxaan kaloon aasaasay 2016 urur la yiraahdo Kamukunji Residents Students and Professionals oo aan ugu talagalay inaan wax kaga qabanno arrimaha ardayda iyo aqoon-yahanada xaafadda Kamukunji 2016 ilaa hadda aan shaqeynaynay sanadkii hadda aan soo dhaafanay ramadaankii hadda aan soo dhaafnay aan dhahay cudran waxaan sameynay program la yiraahdo suxuuri waayeelka oo xaafadda aan waayeelka xaafadda ku nool maadaama lockdown lagu jiray 2 saac habeenimo ilaa iyo 10 saac lockdown ka soconayay suxuurtana maqaayadihii laga qaadan lahaa ay xirnaayeen dad waayeel oo waxa jira hoteelo yar oo gaaban ku nool oo runtii iska dayacnaa waa aruurinay waayeelkaas ilaa 100 ku dhawaad ay gaarayeen 30 habeen oo ramadaanka habeen walba suxuur sarreen iyo caano ka kooban iyo ayadoo kulul guryahooda ugu geyn jirnay teamkayga team Kofi Gaduud annagoo isticmaalaynay organization-ka KRSP marka waxaan kaloon ka soo shaqeeyay isla sanadka 2014 Uwezo Fund barnaamij la yiraahdo dawladda ay hadda ka hor soo bandhigtay oo lagu kaabayay dadka haweenka dhalinyarta iyo dadka curyaamaha ah dadka oo lixaadkooda uusan dhamaystirneen waxaan ku post garaysnaa Isiolo County meeshaas cabaar ka soo shaqeeyay marka ma sha Allah Kofi Gaduud waa qofkaas weeye anoo soo koobay ما شاء الله أدبان كاغا مهندقايا شaqo fara badanna waa soo qabatay bulshadana waa ka soo dhax shaqeysay waan u shaqeysay marka waxaan rabaa 2017 waxa kugu dhaliyay inaad hami siyaasadeed aad yeelato inaan ogaado waxa igu dhaliyay aniga meel waxaan ka shaqeynayay reception ah oo waxaan ahaa markaas ayada hotel receptionist meel lodging aan ka shaqeynayay waxa ii imaan jiray marka dhalinyaro fara badan oo Northeastern iga timid hotelkan Isliyo ku yaala meel la seexdo weey marka hotelka meesha reception-kan jooga marka wuxuu lahaa meel oo safe oo lacagaha حتى مرمر أسكر أنا أوتي ماذا أم بستولد وحدة عن حلست له أمو جلنا وحفظنا هذا مركز سبح بحياة نقاطان دنيرت مركز نوديستن كي إيمانيسي أو حل كرادين عين يا رونتي آدي دي رجلي صوته وإكحيسن جرن political parties كودن كجرو حزبية ده حفيزية ده ميكل أقونين قاركود أفصاحيلك كوميسن هذا الكريم قاركود إنجليش كوميسن هذا الكريم وحين العجب في عنينا وتين العجب فرب بدن يعني قصنا وقلين جري هبينك ما كان سيحنان صبحنا ويكحيسن جرين وحقوقها مركز ترجمات عمل وحقها مركز تو جايد كود عملها سيدي بان يعني سياسة يعني كسر حقلي نمانكي جدي الدور شوينك حفيزك جوجي يا وحي أركان ضد فرب بدن إن حفيزك ده كينايو أو ورقته كليرنس كقاعدنا يعني مركز يراهدين ضد كان ما بيسكو هذل كران سيدت كل أو هذل دونان أيجا ما هذل كران because أذي كوباهين إني هذلان so أذيك أيجا ضد كود هذل أو هذل دونان ما دام أذيك واحد ودد أذيك محا هم سياسة كوجو مجرمية marka dhiirigelinta halkaas iga timid intaasna waxa ku lamaan oo la socdo maadaama xaafadda Isli aniga aad u fahansanahay 1997 anoo caruur ilaa hadda aan ku noolahay meeshaas aan wax ku bartay halkaas aan ku guursaday ku ilmo dhalay aan ku shaqeysto waligay tahriib iyo maxaa la yiraahdaa iyo buufis waligay iguma dhicin xaafaddaas aan jeclahay halkaas aan ku noolaa aad baan ula socdaa marka waxyaalaha ay u baahan yihiin waan fahansanahay dhalinyarta ganacsatada waxay u baahan yihiin dadka Soomaalida oo sharciga haysanin dibka haystaan fahansanahay marka dhibaatooyinkaas aniga 20 sano la soo dhaafay horteeda ka dhacay iyo baahiyaha xaafadda ka jiro oo aan aad u fahansanahay yaa igu dhiirigeliyay 2017 inaan xafiiskaas u tartamo haddana weli hamigaas uu igu jiraa 2022 waxaan rajeynayaa inaan guusha aniga qaado haduu ila yiraahdo marka waxaan rabaa inaan ogaado
maxaad ka ogtahay dhibaatooyinkii xaafadda Islii hadda ka jira oo aad leedahay haddii aad xilka ku guuleysato waxbaad ka qaban doontaa xaafadda Islii dhibaatooyinka ka jira way badan yihiin laakiin haddaan kuwa ugu muhiimsan ka soo qaato waxaa ka mid ah police harassment xaafadda askarta aad bay exploitive u tahay oo dadka waa la jeebaartaa dadka waa la handadaa qofka dembi uusan lahayn korka laga saaraa argagixisaa tahaa la dhahaa si ganacsigiisa loola wareego dadka waxa sameynayaan intooda badan waa Soomaali kale oo askarta isticmaalaya qabyaalad fara badan xaafadda ka jirto oo loogu haayo cadaadis dadka qaar muxuu ahaa police harassment markii laga soo tago xaafadda dhibaatada kale oo ka jirta waxaa weeye tayo waxbarasho fiican ma laha waxbarashada waa wax muhiim u ah qofka bini'aadanka noloshiisa dadkina waxay diyaar u yihiin caruurtooda inay maal geliyaan si ay waxbarasho fiican u helaan laakiin xaafaddanada waxaa ka jiro kolleejooyin aan runta xataa dawladda ka diiwaan gashneen oo iskaga furan sidii qaab ganacsi oo kale waxyaalaha aan la yaabay oo cajiibka igu noqday waxaa ka mid ah kolleejooyin waaweyn oo hadda magacaashooda caanka ah xaafadda oo koorsooyin English course bixinayo koorso English oo laga qalin jabinayo 6 bilood gudaheed ama 1 sano gudaheed Englishka kadibna qalin jabintii loo sameynayo gown intii loo xiro gabdhihii iyo dhalinyartii la yiraahdo maanta waa qalin jabinaysaan graduation ceremony la idin sameynaa English course waa like English course marka la leeyahay English literature jaamacadaha waa lagu qaataa dadka language-ka inay bartaan rabaanna oo ku takhasusayo way leedahay course-kaas laakiin waa inuu 4 sano socdo waa just like any other degree kasta sida loo qaadan lahaa yaa English-ka loo qaataa teeda kale qofka English-ka qaadanayo waa qof kolka horeba waxbarashadiisa hoose la soo dhis primary-ga soo maray secondary-ga soo maray and then hadda rab inuu ku specialize gareeyo languages way jirtaa jaamacadaha waa laga bartaa wadanka iyo dibaddaba laakiinse college tashari ah oo qof hadda Soomaaliya ka yimid aan English waxba u bilawneen oo tiiba Soomaali wax ku soo bartay la leeyahay noo imo maanta 6 bilood ama sanad kadibna waa qalin jabinaysaa shahaadana lagu siinaa college-kana ma diiwaan gashno oo registered ma aha so waxyaalahaas ya xaafadda ka jiro iskoolo fara badan oo laga qalin jabininba oo waxbarashada aysan dhamaanin iska socoto just throughout ma jirto waxbarashada xaafadda ma aruursano board ma jiro guddi ganacsata hadda xaafadda ka jiro maasha Allah oo hadda lagu wado dib u habeyn khaladaad fara badan hore u sameeyeen way jiraan laakiin hadda dib u habeena lagu wadaa oo ganacsiga xaafadda wuxuu yeelanayaa nidaam fiican hadda laakiinse oo hadda maanta ganacsiga xaafadda Islii hadda rabtid inaad wax ka ogaatid meeqa shopping mall ku taalo meeqa ganacsato yar yar joogto meeqa hawkara joogto meeqa dibadda wax ka keensato datagaas waa la heli karaa dawladdana way haysaa guddiga ganacsatadana hadii la weydiiyo waa laga heli karaa laakiinse progresska waxbarashada xaafadda Islii ay sameynayso meel laga trace garan kara ama laga tixraaci kara ma laha board ma jiro union of teachers ma laha union of schools ma laha dadka waxa waaye waa business rivals way kala fadhiyaan sidii dad cadow isku ee camal ardayda interaction ma sameeyaan isma dhaxgalaan aqoon isweydaarsi xaafadda laga ma sameeyo muxuu ahaa grades-ka waa la gataa oo caruurta waa la baasiyaa lacag lagu bixiyaa si u baasaan corruption badan ka jira education-ka marka dhibkaasna inuu xalis iiga sugayo aniga yaa aad u toomaya waxa kale oo xaafadda ka jiro representation-ka nagu yar matalaad rasmi ma haysano sababtoo codkanaga iyo codka dadka qowmiyadaha kale oo nala degan aad u kala badan yahay doorashada aad u dambeysay 120,000 oo qof baa xaafadda ka codeeyay 20,000 kama badnayn codka Soomaalida that means 100,000 yaan la tartameynaa oo aan Soomaali ahayn representation kanaga uu yar yahay si aan taas uga hortagno aniga waxaan sameeyay barnaamij la yiraahdo Islii Kando Initiative xaafadda Islii in laga dhigo degmo ama constituency sida Kamukunji oo kale ah Kamukunjina laga soo jaro 2019 bishii 8aad yaan guddiga IEBC doorashooyinka dalka yaan u qoray warqad anoo ka codsanayo in xaafadda laga dhigo degmo madax bannaan
barnaamijkaas wuu socdaa meel fiican uu noo marayaa guddigana uu noo soo jawaabay warqad official uu noo soo diray welina waa daba soconnaa mashruucan BBI haddii uu meel maro fursad fiican aan haysanaa sababtoo ah 70 degmo oo hor lagu soo kordhin doona mashruucaas laakiin annaga waxaan leenahay ama BBI ha jirto ama yeysan jirin xaafadanada inay degmo gooni noqoto waa u baahannahay problemka kale oo in xaafadda wax laga qabto u baahan anigana aan aad ku haminayo manifestigayga 2022 igu jirto waxa waa xaafadda cariiri badan ka jiro space-ka uu yar yahay 6 kilomitir oo square kama badna xaafadda Islii way yarta aad u yartahay dadka ku noolna waxa lagu qiyaasaa almost 500,000 500,000 oo qof ay gaarayaan waxa u soo ganacsi tagto u soo shopping doonato dad ayagana 300,000 ku dhow oo Islii banaankeeda ka timaado xaafadda Islii marka waxay accommodate gareysaa every 24 hours close to 1 million people waana 6 kilometers square waa 6 kilomitir isku celcelisa way yartahay aad u yartahay meeshaas marka waxa la rabaa in lagu noolaado oo guriyada deegaanka laga sameeyo iskooladii iyo waxyaalihii publicada caafimaadka waxbarashada wixii oo dhan laga sameeyo garoomihii banooniga lagu ciyaari lahaa laga sameeyo mataatuudi iyo baabuurtii ay maraan mana suuragalna ma aha chaos ka jira xaafadda hadda waxyaalaha aan soo kordhin doono marka waxa kamid ah insha Allah inaan la nimaano qorshe public private partnership aan ku sameyn doono private business-ka qurba joogta Soomaalida qurba joogta ah aan u furno fursad ganacsi iyo maalgashi iyo ganacsatada xaafadda Islii aan u furno fursad ganacsi iyo aan u furno dawladda inay nagala qayb qaadato xaafadda Islii aan hoosteeda ka hagaajino waxyaalaha public-kada ay isticmaalayso sida isbitaalada transportka iskoolada iyo ganacsiga in hoos la geeyo underground Islii loo hagaajiyo si cariiriga farada badan looga baxo mataatuuda farada badan jaamka farada badan buuqa farada badan ee xaafadda uga yarata xaafad deegaan ay noqoto oo commercial-ka hoos loo ganacsiga hoos loo kaxeeyo qodobo fara badan baad ka dhawaajisay qaarkood ay yihiin social issues middan ugu dambayso oo xaafadda Islii in dhulka hoose haday noqoto qayb ka mid ah dhulka hoose loo daadijiyo fikradaasi xageed ka keentay macquul ma kula tahay Islii ma ka suurtoobi kartaa intaan wadamada hormaray la aadina Afrika wadamo laga hirgeliyay ma jiraan Afrika horta waxa waaye Afrika hurudooy waa Afrika waa huruda Afrika wili lagama sameeyay arintan laakiin se wadamada kale Mareykanka iyo European-ka waa laga sameeyay transport-ka underground mara oo trainmada dhulka hoostiisa ay maraan waana wax caadi oo jiro ma aha wax oo qariib wax oo lala yaabo ma aha wax jiro waaye anigana hadee maadaama aan nin firfircoon oo dhalinyaro oo hadda soo kacay aan ahay fikradihii hore lagu shaqeynayay waa inaan wax ka bedeli karo marka waxa aan soo kordhinaa waa inay noqdaan wax cusub oo soo jiidasho leh oo waxtar u leh dadka iskoolada isbitaalada transport system-ka garoomada banooniga lagu ciyaaro meelaha lagu dabaasho libraries-ka waxyaalahaas waa in underground-ka la geeyo waa si micnaha xaafadda ay u noqoto xaafad residential ah oo la deegaan leh sababtoo guryihii hadda zaid ay u bateen dabaqa ugu yaro hadda maanta Islii ku yaalo waa 5 biyaano waa 5 ilaa 4 waa kan ugu badanna ilaa 13 14 ay marayaan oo la iskor saare that means population-ku wuu soo badanaya mar walba wuu soo badanaya qurba joogti waxay rabaan inay soo noqdaan xaafadda Isliina aad ay u jecel yihiin marka inta xaafadda Islii intii laga guuro xaafado kale la camiri lahaa ganacsiganagana uu sidaas uu meesha oga bixi lahaa aniga waxaan keenay fikirkan ah in dhulka la qodo aad loo qodo laga diyaariyo ganacsigaas isbitaalada waxyaalaha public use-ka ah oo nolosha public-kada oo arrimaha guud oo dadka ka dhaxeeya oo habeenkii la xiri karo habeenkii 2 saac 3 saac dil gaar laga soo kala tagaa meeshaas cid seexanaysa ma laha soo qof neef u baahan oo maanta dhan meesha ku noolaanaya ma laha waa laga ganacsanaya waana laga soo tagaa teeda kale fursad badan ay abuuraysaa shaqo abuur fara badan
dadka aan Soomaalida ahayn oo xaafadana la degan way baahan yihiin in shaqo abuur loo sameeyo u baahan yihiin haddii kale meesha waxaa ka dhalanaysa hadee xenophobia-dii South Africa hadda ka socota Soomaalida la beegsanayo waa in marka dadka aan shaqo abuur u sameeyno si ay nooga sii jeestaan oo aysan noogu mashquulin sababtoo xasidku iska badan yahay marka adiga maanta dhan alleesa cunaysid dhaylo cunaysid xaafadaha dariska kula ahna lagu gaajeysan yahay cadow baa yeelanaysaa marka si cadowgaas iyo fakhrigaas uu u yaraado mashruucan waxaan isleeyahay wuxuu soo kordhin doonaa shaqo abuur aad u fara badan dad fara badan ka faa'iidi doona zaxmadda iyo cariiriga islii korkeeda ka jirana wuu kala yareen doonaa barnaamijkaasi waa barnaamij aad u wanaagsan marka waxaan rabaa inaan ogaado fikraddaasi oo wanaagsan ayaad la dhacday ayaad ugu darsanaysaa ololahadii doorasho ama waa barnaamij daraasad lagu sameeyey inta sana barnaamijkaas lagu hirgelin karo dhaqaalaha ku bixi karo intaba waa wax aad hayso aad noo sheegi karto daraasadda weli ma bilaabanin ilaa hadda waxaan maraynaa curinta fikirka hal qof uu ka yimaadaa hogaamiyaha sidiisana shaqadiisa ma aha inuu guriga asaga dhiso hogaamiyaha shaqadiisa waxaa waaye naqshada guriga inuu keeno in guri loo baahan yahay uu sheego qof walba ma dhisi karo waxa aan ka sheegay aniga waxa aan jeebkayga ka dhisi karo ma xafiiskaygana awood uma laha inuu dhiso waxaas hadda aan rab inaan dhiso laakiinse hadda waxaa jiro mashruuc Konza City la yiraahdo oo wadanka ka socda dhankan Ukambani Machakos iyo dhankaas ka socda wax jira ma ahayn 10 sano ka hor Konza City cid taqaanay ma jirin laakiin Konza City waxaa la malaynayaa ama la saadaalinayaa 2030 2030 vision 2030 inay noqon doonto mashruuc ugu weyn oo wadanka laga hirgeliyay 2017 barnaamij noocan oo kale ah waxaa ku tartamay oo doorasho ku galay Miguna oo governor county-ga Nairobi u tartamay waa fikradii waxaad moodaa in bulshadii ay ka gadmi weysay bulshada reer Nairobi soo lahaa ciriiriga magaalada ka jira ama Nairobi ka jira caasimada ayaan yareynaynaa dhammaan boostejooyinka gawaarida wadooyin hoose ayaan u qodaynaa soo uma muuqato wado horey loogu guuldareystay inaadna hadda aad cagta saarayso waa lagu guuldareystay ma dhihi kartid sababta ay lama tijaabinin Miguna wuu ku saxsan yahay teeda kale Miguna wuxuu yiri kaliya transportka yani public transportka aan hoos marino yiri aniga waxaan ku yiri islii kale aan hoos ka hagaajino marka waxaan rabaa waxay tahay hal mar teeda kale aan mid ku sheego Sakaja ninka hadda Johnson Sakaja senator Nairobi waagaas wuxuu ku jiray dadkii ku jeesjeesayay Miguna oo diidanaa in underground transport la sameyn karo wuu diidanaa laakiin se haddaad dhageysatay waraysiga hadda u dambeeyay oo Churchill uu siiyey Nairobi governor inuu u tartamayo sheegay wuxuuna ka dhawaajiyay subway systemka underground la marinayo inuu sameyn doono 2017 muu aaminsaneen in la sameyn karo laakiin hadda wuu aaminsan yahay soo wax jira waaye wadan adduunka meelaha kale waa laga soo sameeyay Afrikaanka kaliya dhibka haystaa wuxuu yahay waa lazy ma rabaan in waxyaalihii ay comfort zone kooda inay ka soo baxaan ma rabaan wixii ay yaqaanaan rabeen iskaga cishtaan taasna waa iska nasiib darro haddaan u imaano qodobkan oo islii in degmo gooni ah xildhibaankeeda laga soo doorto ay yeelato in laga dhigo baahidaada taa keenaysa maxay tahay baahida taa keenaysa waxaa weeye waan kuu sheegay waa nagala cod badan yahay representationka naga wuu yar yahay xildhibaanka hadda jiro xaafadda islii kama campaign gareeyo codkooda wuxuu ugu jiraa salad box ugu jiraa meelay iga aadayeen ma lahu leeyahay anaa Soomaali ah anay ii baahan yihiin focuskiisa iyo awoodiisa campaign wuxuu saaraa qowmiyadaha kale oo uu ku tuhmaayo cod fara badan inay haystaan waana run xisaabta aan kuu sheegay hadaayada waxay 120,000 Soomaalida meesha ka codaysa kama badneen 20,000 oo codoo kalena waa heli lahayn laakiinse waa la tahriibiyey codadka islii waa laga kaxeeyey Gaarisa Wajeer iyo Mandera loo kaxeeyey waxaan rabnaa marka codadkaas horta inay islii joogaan oo aysan islii ay ka codeeyaan oo mar dambe aana la kaxeenin si cadadka naga codeeyaasha codbixiyayaasha uu kor u kaco dadka xaafadda deganna populationkooda wuu badan yahay 300,000 lagu qiyaasaa dadka xaafadda islii degan laakiin dadka codeyn karo way yar yihiin markay cirka u boodaan waa 50,000 60,000
labaatan ilaa 15 kun kamid ah waxaa loo kaxaystaa North Eastern xilliga doorashada markii la gaaro mid ina adeer lagu kaxaysto mid ina abti lagu kaxaysto mid seedi lagu kaxaysto mid dumaashi lagu kaxaysto mid saaxiibtinimo lagu kaxaysto 10 ilaa 15 kalena ayagoo kaarka codka haysto laynka dheer ay ka wahsadaan way iska seexdaan another 10000 kalena ID-ga way haystaan laakiin cod maba qaataan marka hadda waxaa aad u boorinayaa aad u dhiirigelinayaa in dadka sharciga haysta oo islii ku nool islii kaliyana ma ahe xaafadaha noo dhow kulli sida South C South B Camrox Donholm Pangani Parklands xaafadahaas kulli Ngara dadka degan oo Soomaalida ah oo Nairobi ka codeeyo inay codkooda islii ka qaataan si population-ka codeynaayo ay u bataan oo dadkan qowmiyadaha kale aan ula sinaano haddii xitaa aan la sinaanin cadadkanaga hadda 20 kun aan ka qaadno ilaa 40 kun 50 kun aan gaarsiin karno taasna waxay ku imaan kartaa dadka dhan inay codka qaataan xaafadda islii codka ka qaataan xaafadda islii ka codeeyaan ayna ogolaanin mar dambe codkooda in loo tahriibiyo islii ka baxeeda haddii taa lagu guulaysto dadka xaafadda islii ay kaararka codbixinta ay qaataan islii ay ka codeeyaan baahida ah in islii qaybta degmada Kamukunji laga soo jaro baahidaasi soo meesha kama baxayso marka codka uu intaas gaaro already hadda waa u qualify gareynay inaan constituency noqono nidaamka IEBC ay u dejisay degmooyinka numberkooda meesha loogu talagalay Kamukunji ahaan markii loo fiiriyo waxaan u qalanaa Kamukunji 3 degmo in laga dhigo ani hadda labaan raadinaa bas laakiin se waxaan u qalanaa anagoo dhulka aan ku fadhino uu yar yahay laakiin dadka ku nool aad u fara badan waxaan u qalanaa marka in 3 xaafadood loo kala qaybiyo tusaale ahaan xaafadan la yiraahdo Mandera East doorashada hadda u dambeysay waxaa ka codeysay 28,000 oo qof Mandera East waxay ka kooban waa degmo xildhibaan ka soo gala waxay ka kooban tahay 5 ward ay ka kooban tahay 5 ward haddaad marka 28,000 u qaybiso wardkii meeqa ku soo hagaagayso 6,000 4,000 waa laakiinse Kamukunji hal ward oo kamid ah oo la yiraahdo Islii North oo waliba 3 kale oo ka cod badan ay jiraan yaa ka cod badnaa Mandera East Islii North hadda waxaa ka codeysay 30,000 oo qof Mandera Islii Northna waa ward waay MCA baa ka soo gala Mandera East oo ayada dhan constituency ah waxaa ka codeysay 28,000 dhulka ay ku fadhiyaan aad u weyn yahay Mandera East laakiinse shacabka ku nool way yar yihiin teeda kale shacabka Mandera East ku nool kulligood way codeeyaan dadka oo xilliga kibaandhaha gaare kulli way codeeyaan sababtoo codkooda meel kale looma qaado Mandera un bay ka codeeyaan marka waan u baahannahay codkanaga in kor loo qaado advocacy-ganiga badanaay waxaa badanaay fursadda hadda aan Kamukunji ku leenahay oo siyaasadeed hadda waxaan leenahay 30% fursad ah haddii codkanaga uu 50 gaaro waxaan yeelanaynaa 50% iyo ka badan marka qowmiyadaha kale waan la tartami karnaa awoodna u sheegan karnaa codkanaga haddii hal qof Soomaali iskugu geen waxa midaas u sameeynayna waxa waaye xaafadda in la soo jaro doorashada hadda u dambeysay waxaan ku istaagnay 4 Soomaali ah iyo 3 aan Soomaali ahayn oo madow ah 4 Soomaalida ahayd mid wuxuu helay Yusuf 40,000 oo cod helay mid kale wuxuu helay 20,000 mid kale wuxuu helay 10,000 anigana kumanaan kala helay that means Yusuf waxa ka maqan 10,000 oo ninkan uu helay 20,000 uu kan helay madowgana ha u codeeyaan haday rabaan laakiin 20,000 ugu yaraan nus kamid ah Soomaali waa oo ninkan Soomaaliga u codeeyay 10,000 oo ninkan uu codeeyay 5,000 oo kamid ah Soomaali waa already meesha 15,000 oo cod ku baxda aniga kuwii aan qaatay ku dar another thousands 20,000 oo cod meel cid la ku baxda laakiin markii Islii constituency la yiraahdo waxa isla tartami doono Soomaali un bay noqonayaan haddii xitaa 100 xildhibaan murashax ay ku istaagaan ugu dambeyntii codka waxa qaadan doono on qof Soomaali ah teeda kale waxay noqonaysaa xaafad ku gorgortanto hadda moogtay ma gorgortami kartid sababtoo xaafad waa lagu leeyahay Kamukunji waa lagu leeyahay actually waa lagaaga badan yahay marka codka la yiraahdo hantida ugu farada badan iyo dheefta ugu farada badanna Islii taala ganacsiga ugu farada badan Islii yaala canshuurta ugu farada badan Islii laga aruuriya dad
dadka islii ku nool dawladda uma shaqeeyaan. They don't work for the government. xafiiska dawladda kama shaqeeyaan, xafiiska xildhibaan kama shaqeeyaan, wasaaradaha xaafadda ka howlgala kama shaqeeyaan, chief xitaa kama aha maxaa la dhahaa constable police kama aha, xataa dadka wadada xaqayan ka mid ma aha Soomaalida. dawladda canshuur way ka aruurisaa mana shaqaalaysiiso dhalinyarta Soomaalida. way jiraan laakiinse ma badno. ma jiraan anaa ku dhahay. fiiri hadda xaafadan oo kale islii waxaa chiefka ay gabar Madam Jawahir la yiraahdo. laakiin Madam Jawahir waxay ka soo jeedaa gobolka Garissa County ka soo jeedaa. Islii ma aha. You see? Islii residents dadka islii degan oo maanta markii hal codeeyo la dhaho reer Garissa markii Garissa aadaan, reer Wajeer markay Wajeer aadaan, reer Mandheera markay Mandheera aadaan, dad baa ku soo haray islii oo yar ma yaro. that 300 400 500,000 ka aan ku sheegay way joogaan islii meel kama aadaan. laakiin waxaan ku dhahay codkoodana wuu yar yahay oo cod ma qaataan oo intooda badan sharci ma laha. intii sharciga qaadatayna codkooda qaarna waa la tahriibiyaa, qaarna leesinimo iyo iska muxuu ahaa daciifnimo bini'aadanimo laynka ma galaan, ma codeeyaan. teeda kale ninka Garissa ka taagan iyo ninka Wajeer ka taagan iyo ninka Mandheera ka taagan ama ku dhashay ama ka soo jeedo wuxuu codkiisa geenayaa Wajeer iyo Garissa Mandheera. You know why? sababtoo ah in adeerkiis oo isku qabiil yihiin ama isku laf yihiin yaa ka taagan meeshaas.